السلام الله soo dhawaada asxaabta qaaliga ah halkani waa Haydar Afidis oo alaaba aan kusoo gudbiyo dabcan lacagaha yani dhaqaaqaya ama dhaqaaqa samayn doona insha Allah dabcan halkan isbuucyadii hore iyo isbuucanba waxaan kusoo gudbinay lacago badan oo weliba targetkeeni noo ataagay dabcan waxaan rabaa maanta inaan idiin soo gudbiyo lacagtan oil ama crude oilka sida u taqaanin dabcan lacagtan waa lacag muddo badan aan sugayay oo yani structurekeeda aan la socday dabcan oo aan muddo badan ka trade gareynayay isbuucyadanna aan sugayay oo structurekeeda iyo qaab dhismeedkeeda aan la socday dabcan lacagtan waxay inverse correlations ku yihiin lacagta USD ka ay dhahaan waxay ku yihiin inverse correlation dabcan saad ujeedid oo tiyo inverse xagga loo gediyay dabcan haddaan ku laabto lacagtan US oil dabcan maxaan ka sugayaa US oil haddii aan tagno ama aan falaqaynta ka bilowno weekly time frame-ka qaab dhismeedka suuqa oo ujeeda dabcan in future waxaa la rajaynayaa lacagtan in ay yani ay sii socon doonto dabcan qaab noocaas oo kale kadibna ay tegi doonto dabcan meeshan ay tegi doonto in future kadibna ay soo daadan doonto qaab structure ah ay ku socon doonto haddii aan yani weekly time frame-ka aan yani conceptiga guud aan ogaanin waxa waaye dabcan lacagtan inay tahay uptrend oo ay yani uptrend uu ku jiro waa laga yaabaa in trend lineka naga soo celiyo lacagtan oo xagga la keeno in future qaab noocan ah ku tagto correction kadibna trend linka test gareyso kadibna ay soo daadato qaab meesha ku timaado kadibna ay sii dayso halkan double bottom hoose ay ka samayso kadibna ay sii dayso dabcan qaabkaasna way noqon karaysaa lacagtan marka anaga waxbana gaba gelin yani you know weekly forecasting-ga dabcan anaga waxaan ku tradingna waxa waaye 15 minute or 1 hour time frame-ka dabcan haddaan u gudbo daily time frame-ka muhiim waaye inaad soo ogaatid xaaladda ay lacagta ku sugan tahay every time frame kasta dabcan lacagtan waa ujeedaa halkan kasoo samayso massive correction ay gashay kadibna large channel oo with channels badan ay samaysay kadibna waa soo dhacday lacagtii iyadoo samaysay touchkii labaad ee trendingkan kadibna saddexaad baan dhihi karnaa trendingkan kadibna ay all the way kala wareegtay goos waxay dhex yeeshatay double bottom hoose waxay probability tab kor yani structure ay ku timi kadibna way kala laabatay 94kii structure-kii tagtay halkana kadibna maxay samaysay correction ay bilowday dabcan maxaa laga rajaynaya marka lacagtani waxay ku jirtaa expanding large expanding baan dhihi karnaa channel or flag dabcan meesha keliya lacagta laga soo celin karo waa halkan haddii ay qaabkay ku tagtana waa la eegayaa qaab correction ay ku tagto wajiga dabcan iyadoo samaynaysa qaab expanding ah يعني halkan waxay ku tagtay qaab correction ay ku tagtay structure saad ujeedid structure aad u qurux badan ay ku tagtay meesha dabcan haddaan tago 4 hour time frame-ka kullama aan sii yareeyo time frame oo kullama aan u dhawaanayno meesha anaga targetka noo ah dabcan halka waxay ka samaysa waxa laho laba taabasho saddex taabasho aan dhigi karnaa because taabashada saddexaad waxay ku jirtay qaab correction dabcan waa la socday halkan markii lacagta way maraysay waan isgareynayay in lacagtaas ay tegi doonto halkaas ay tegi doonto waxay samaysay waxa laho flags sii daysay flag ay samaysay sii daysay flag ay samaysay sii daysay flag ay samaysay dabcan halkan flag ay dhigi kartaa kadibna qaab correction flag 94kiisi bay qaab correction u jirtay waxaan rajaynayaa lacagtan in ay soo laaban doonto la rajaynayaa oo ay soo dhici doonto muddo levelkan kadibna halkay ku timaada la eegi doono dabcan hadda xaaladday ku sugan tahay lacagtan haddaan dib u eego halkan waxaa uga jeedaa waa saddex taabasho waadaxa plus correction hadda ku jirto waxaa dhici karta in correctionkaas sideeda ugu soo dhacdo dabcan ay soo dhacdo correction markan ku gasho sii dayso halkan correction ku gasho sii dayso correction markan ku gasho kadibna qaabkii halka ku tagtaa la eego hadday qaab impossible ku tagay sii dayso lacagtaas ay targetkan ay soo taabanayso kadibna
ay halkaas ka kala wareegto. maxaa kaloo macquula hadda lacagtan structurekay ku jirto waxa waaye structure aad u qurux badan waaye fiiri waa kow iyo labo waa laba taabasho waxaan dhihi karnaa laba taabasho bilaa saddex taabasho saddexaad bay aysan soo baxo qaab corruption ay bilowday sida tan maxay samaysay waxa loo qaab noocaasay ku socotaa lacagtani haddaad eegtid dabcan waa pattern within pattern oo yani really yani kuu fududeynaya in lacagtan reduce risk entry ka qaadato qaab noocaas oo kale ay samaysay pattern bay bartan ka samaysay macquul in ay xoogaa sii deyso ay nine toolka pattern ka timaado kadib button correction ku timaado kadibna kuu sii deyso so markaasoo kale waxaan dhignaa waa 820 rule dabcan oo yani 80% suuqan ka mid waxa weeye dabcan correction oo ujeeda lacagtan high risk in laga awood batay 820 rule hal impulsive oo dhaqaaqo wax macnaha kuma jiro haddii impulsive ay ku dhaqaaqdo waaye haddii rabto in impulsive ku dhaqaaqdana waa halkan in ay 90 rule kasi tagtaa qaab correction ku tagtaa dabcan qaab noocan kala kadibna all the way sii deysaa ha u malayn yani impulsive ay ku dhaqaaqday in lacagtaas ay korsiyaadayso way soo laabanaysaa you know this channel ama up the channel ama yani below the channel oo bay wax ku samaynaysaa waxa weeye below the channel oo halkan wax ku samaynaysaa waxa la correction kadibna sii deynaysaa ama inside the channel kee wax ku samaynaysaa waxa la correction kadibna way sii deynaysaa lacagtan qaab noocaas oo kale waa iyadana loola dhaqmo sidoo kale lacagtan waxaa kuu sheegaya in lacagtan ay sii deynayso dabcan waa inaad ama xilliga dhaqaaqdiiso dartina ogaatid waa inaad barbarka wax laho time frameska haddaad tago 4 hour time frame muxuu ii sheegaya 1 hour time frame wuxuu ii sheegaya halkan correction uu ka dhacay sidoo kale 4 hour time frame muxuu ii sheegaya waa inaan ogahay isna wuxuu ii sheegayo dabcan wuxuu ii sheegaya waxa weeye lacagtan in xoogaa ay isdiyaarinayso haddana aysan wax hadda entry ay siinin oo candlekaas intuu xirmayaan sugayno horwartan filka haddii candlekaas dabcan la soo jebiyo oo candle qaab noocan oo kale uu ka dhaco means waxa waaye waxaa ka dhacay candladii yani high probability-ga suuqan u daadanaya ka dhacay kadib waad gelaysaa below this candle baad gelaysaa sidoo kale daily time frame may siinaya isna daily time frame-kuna waa in uu siiyaa a lot of like weeks badan waa in uu siiyaa ii sheegaya suuqan in uu kala wareegayo dabcan dabcan hadda weekly time frame-ka wax wiiga weli ima siin daily time frame-kana cafan sidoo kale lacagtani way isdiyaarinaysaa waa dhihi karnaa haddii a lot of week badan oo ay siin lahayd daily time frame-ka lacagtani way diyaarsanaan lahayd because waxay ii cadaynaysaa mindka psychology-giigu in buyerskii laga awood batay ay ka awood bateen sellerskii then ay awoodda jihada la wareegeen sellerskii kadibna suuqaasi hoos u daadan doono insha allah dabcan marka lacagtani way diyaarsan tahay insha allah please ama risk entry ku qaata haddii ay wax macquula in siiso dabcan sidoo kale lacagtaa rabo inaan idila wadaago waa lacagta AUD USD JPY USD JPY waxa aad ku badan bay samaysay lacagtan muddo badan baan kasoo tirigelinay dabcan lacagtani sidoo kale iyadana waxay joogtaa waxa weeye no double bottom hoose bay joogtaa sidoo kale laba taabasho bay ku tagtay dabcan sidoo kale the main channelka ama main you know structureka guud meel double bottom u ah bay joogtaa dabcan haddii aan tago 4 hour time frame-ka waxaad arkaysa u jeeda dabcan waxaa laga rajeynayaa lacagtan waxaa laga rajeynayaa macquul in ay impulsive jabsato halkan qaab correction ku tagto trailinka kadibna all the way soo shidayso falaaga labaad inaad ka qaadataan insha allah isku daya because qaabkay ku socoto waa qaab janjeera oo qaab noocan oo kale ah macquul ay tahay suuqan la celin doono dabcan loo celin doono naturalkii ama beginning of the correctionkii
laakiin waxa wanaagsan in aad riskiga aad iska ilaalisid dabcan haddaan 1 hour time frame ka tago 1 hour time framku wuxuu ii sheegayaa dabcan in lacagtan ay samaysay 3 taabasho plus double bottom ay joogto macquul inay tahay in lacagtan ay sii dayn doonto dabcan halkan correction geli doonto sii dayn doonto correction kale sii dayn doonto correction kale so waxaan yani ha u malayn suuqan inuu jiha bedeshay ee waxa weeye suuqan structure-kan uu soo dhamaystiraya dabcan 3 taabasho taabashada saddexaad uu soo dhamaystiraya qaab correction uu waqtiga risk entry la qaado markaasoo kale waa si high probability badanaya dabcan hadda oo kale ma aha sidoo kale muxuu samayn karaa dabcan halkan buu kaa siin karaa yani 4 time frameka ama 9 time frameka kore ama high time frameka in rejectionis ama weliba kandalo suuqan yani awooddiisa lagula wareegayo aad ka aragtid kadibna aad ka qaadatid waxa weeye risk entry aad ka qaadatid kadibna aad lacagtan aad inshallah entry ka raasatid haddaad 15 minute time frame ka tagno dabcan waxaad ujeedaa halkan lacagtan in yani structure qurux badan ay ku timi dabcan haddaan yani ku eegno 1 hour time frameka maan arkayno waxaan laakiin the secret waa 15 minute time frameka oo aad clarify garaynaysid dabcan wax waliba waan ujeedaa sida waa qaabkii halkan ka dhacdo oo kale dabcan qaabkan oo kale ku socota lacagtani ujeedaa filaya in ay sideeda ku kala laaban doonto insha allah ayna tegi doonto the naturalka dabcan ujeedaa filaya dabcan in ay naturalka tegi doonto macquul sidoo kale inay xoogaa yar jabsato marka wax waliba ay suuq samayn waa inaad ka taxadartaa haddaad ka qaadatid waxa laho the break yani breaking of this channel haddaad ka qaadatid okay waaye laakiin waxa macquula in ay xoogaa yar soo laabato dabcan haddii qaab noocaasa ku socoto correction aysan basku qaaba soo laabato iyadoo double bottom hoose meeshan ka samaynaysa oo mini double bottom hoose kadibna all the way lacagtaasi laba laakiin muhiimaddu waxa waaye lacagtan inaysan slippage ugu dilin haddii lacagtan halka rejection ka aragtid below this structure asalkaaga haddii hadhow haddii kugu soo laabato qaab noocan oo kale ku socoto soo laabato haddana aysan kugu saarin ama ay kaa saarin tradeka way dabcan qaabkaas oo kale iyadana uga faa'iidayso insha allah lacagtan iyadana entry bay leedahay maanta dabcan sidoo kale lacagtan ay euro card lacagtan ay dhahaan iyaduna entry baa nuga jeedaa dabcan dabcan waa na sugaya insha allah in wax waadixaysiiso halkan waxaa uga jeeda wax weeye 15 time frame 1 2 3 saddex taabasho halkan wadax inay kaa siisay halkan waa saarsan kartaa si waa laba taabasho dabcan laba taabasho plus double top ay tagtay soo laabatay halkan oo kale dabcan halkan qaabkan structure-ka ay naturalkiisa tagtay qaab correction ay ku tagto waxa laga raadinaya insha allah in qaab correction ay ku socon doonto ay halkaa tegi doonto bannaan kadibna ay halkaas naga siin doonto waxa laho entry kadibna soo doonto ilaa iyo mana superstars insha allah iyadana entry fiican baa ku jira insha allah waa inaad iyadana aad isha ku haysaan lacagtan macquul in ay hadda oo kale halkan markay timaado oo kale markay soo shidiiso oo kale halkan qaab correction qaab noocan ku timaado kadibna laabato correction qaab noocaas samayso kadibna bartaas ay kasoo daato marka wax waliba insha allah lacagtani samayso waa inaa isha ku haysaa dabcan adiga oo careful samaynaya ama taxadiraya every time lacagtana entry baa ku jira insha allah ha laga faa'iidaysto dabcan lacagtan waa NZD JPY dabcan lacagtan iyadana waxaa ku jirto entry baa ku jiray dabcan
entry baa ku jiri lacagtan inkastoo ay rajaynayso inay 91 qaadato dabcan ayna structure-ka dhamaysato dabcan structure-ka 90 rulkiisa ay dhamaysato iyadana dee entry baa ku jiro haddii lacagtan inverse ku dhaqaaqdo dabcan ay correction bartankaas siiso waadixa dabcan correctionkaas aad ka qaadan karaysaa insha allah haddii aad rabtid inkastoo lacagtu ku macaan tahay in laga qaato risky entry the structure يعني the reversal of the large structure in laga qaato ku macaan tahay bartan ay ku macaanid inkastoo bartan aysan wax entry wanaagsan laga siin inkastoo si loo taabasho ayadana soo dhacday qaab correctionkan ay kusoo dhacday dabcan aysan trailinkii aysan taaban inkastoo halkan haddii high time frame-ka tagno ay noqon doonto double bump hoose haddaan tagno forward time frame-ka ama daily time frame-ka waxay samaysaa laba taabasho kadibna way laabatay inkastoo lacagtan risk yani ayna siin yani wax entry oo waadix aysan siin laakiin waxaan rajaynayaa insha allah meeshaas inaad entry ka heli doontaan kadibna aad ka qaadan doontaan insha allah laakiin markay habasho ku gasho candle yani ama weliba waxaan dhihi karaa yani continuation patterns inaad ka heshid insha allah aad entry wanaagsan ka raasatid dabcan waxaan rajaynayaa inaad yani si fiican uga faa'iidi doontaan insha allah lacagahan aan soo dhigay dabcan ishana ha lagu hayo insha allah haddii beri ama maanta ay dhaqaaqi waayeen insha allah waa soo socda waxayna siin doonaan insha allah wax waadixa kadibna ay entry wanaagsan aan u heli doono qayb baan rajaynayaa asxaabta qaaliga